gabadh baa maradeeda khafiif ka dhigatay intaa yar laabta ay qaawayso waa Sacuudi Arabiya ina sheekha meesha soo galay gabadhii baa waxa uu ku yiri la ilaaha ka cabs law jaa'aka malakul maut maada taf'alin haddu malakul maut ku yimaado adiga oo sida laabtaada u qaawiyay oo rag sida ku daawanayaan maxaad yeeli ku yiri inta qosashay ayaa waxay tiri boortaabalka rabbiga u garaac oo telefoonkaygana waxaad ku tiraahdaa malakul mawtka ha keeno boortaabalka rabbiga u garaac telefoonka rabbiga u garaac waxaad tiraahdaa malakul mawt keen yarkii wuu naxay isagoo argagaxsan buu ka baxay meesha waxa uu yiri albaabka ma gaadhin wallahi alazim illa waxaan maqlayaa baqaylo wala qayliya wala wasoo noqday maxaa dhacay waaba gabadhii oo wajiga u dhacday oo dhimatay way dhimatay xaqii isla markiiba meeshii naftu kaga baxday waxa uu yiri markaan arkay in iyadii ay tahay ayaan dadkii u sheegay on iri wallahi alazim imkan nasiixayni gabadhan oo hadalkaas ay tiri ilaahay waa ka qabtay waxa uu dadkii way ooyeen meeshii way ka baxeen iyagoo ooyaya qisadan waxay dhacday bishii Shacbaan 1420 hijriyada nabiga kaleey salaatu wasalaam ree faysaliya dadka ka shaqeeya oo loo wada garanayaan qisada iyo sa u dhacday ilaahay waa naxariis badan yahay addoonkiisa waa u kaadiya rabbi subhanahu wa ta'ala لكن مالك وقبته ربي أمنحه قصتك له عاوة هذينك قصص كون قصدني وحي كدعضي الشيء ما ماشي كدعضي لكن ويلي أعادي اللي يرهدون أيا وحا وكنا ولا نلال آد وقرار بكنا ولا حمان بدن ku noolaa khamradu cabbi jiray hablaha ayuu ka tuman jiray fasaad badan ku noolaa gabdhaha ayuu meelaha ka ugaarsan jiray waxa uu maalin u helay gabadh la yiraahdo rabaab la yiraahdo oo ardayada oo jaamacadda dhigata ayuu helay telefoonkeedu helay uu telefooniyay والله الله سوى لك سبع وشا كيستين هبلها انتو ساسو كلاوية والله الله أيوما كدميل كولا بلمي وحمان بكو سميني قبضا يدو وين خشفتي وواحد تريمي أركي ميست تليفون كأما كوشا كيسان وليين العقبة دمك قبل ما يسي تليفونك ما أنا والبو برعاه ووشا كيسان بس لكنه الله الله ويسك ديدي markii dambe waxa ku naan ku guursadaan raba xumaan mar rabo waxaas ku tul akhri waxa uu ku yiri guriga aan ku diyaariyay iyo xamaanta aan iibiyay kaale soo arag hada beentii moodis waxa uu wadaba way soo jilcday gabadhii guriga ayaa ku tusi uu dhaartay wuxuu ku yiri wallahi alazim inaan rib alhumaan hadalkaagu manaag aqli badan baad u egtahay waxaan rabaa bas inaan ku guursado gurigana soo arag maalin subaxa gabadha kulliyada dhigata jaamacadda dhigata aabaheed baa subaxdii sii qaada duhurkiina isaga soo doona saasi ku noosh aabaheed baa sii qaada mar walba aabaheed oo oday aad u daran oo adeegya rabaab subaxdii markuu odaygii meeshii u dhigay ayay kula balantay inanka waxay tiri meesha igu kaalay kulliyada horteeda ماشي بوجيمي وكحيي ماشي ولا تجي قولي وتتصي أي كرسان السجائية أسحابتي سقار بي سحابي قولي وتصي وكان قولي هذه أسكالية هذا كل جرسانية حمال مربى وكان نظيف طاع وكان صدنا وحنودنا هذا الدر هذا حمال تني جبل وانت بدل حق وكور جبل دي وحوضره وكتمصي
بس waxa uu ku yiri sharaab baan inoo soo qabana waan soo noqon si yar joog aqalku dusha kaga sii qufulay baabuurkiisu ka haystay suxun buu waday hayga habsaan bay tir aabahay baa soo doonayo waqtigu soo imanay ayaa soo dhaway xoog buu waday mukhalafu sameeyay wala qabtay taraafigi baa qabtay way kaxeeyeen bawka lagu riday wala xiray مفتاح isaga gabadha meesha ku jirta mid saaxiibkii oo mفتاح haysta isaguna hablaha soo ugaarsada oo meesha keena ayuu telefooniyay wuxuu ku warhaa gabadha ka tanto aynkaan soo gurigii baan ku xiray oo wanigana waa la xidhayadana aabaheed baa u imanaya kulliyadii bay tagaysay bal gabadha hore orotagoo ka fur waa isu soo daakiina baabku yara gargaraacay gabadhina waxay ku dhex ooyeysa الله بايبا إيماني الله محيهيلي الله وقتك باقاري الله ساسي هايس وكفري إنك حامد بالي لهذا مركو كفري محو أخيرا وولاشي قبلني وولاشي حقب نحذن يدنا نحذن حقب وحا أيري محمان باد كنتي كرامه يدي باد مارته كو عيارتي شرفتيدي باد كو عيارتي تيمهيغي وجيجيدي حقي بموت مدي ايكو غلي سواس ايكو دلي ولاش اسغا سؤال waxay tiraahdaa good ha hada qodid adeereyn hada deereysid inaad ku dhici doontid mooyaane يعني إسرائيل هذا ولالك جود أيو قديد هذا هو ديرين حلقة يا وإن أدوات كل عديدة هذا هو ديرين مرك هذا قوي وحاول ربي هبلها كلية حمان تكلية فساد وكا ولا شيء بلغو سوري دي قلت أخيرا يدي أي ديري ما سيورنا قصة كالي خسوين كان waxa uu sheegay waxa weeyaan in lagu waanto wax lagu qaato qisadani waxay ka dhacday iyaduna waa talo kale waa u dhow yahay laakiin ninka waxa la yiraahdaa magaciisa Saalix baa la yiraahdaa waa nin ganacsata oo shaqaysto oo taajira isagoo u socday meesha iyo Suuriya ayuu socday Xalab طريقه isagoo ku jira ayaa baraf badan ayaa soo daay طريقه u sii maray ayaa la mari karin baraf awgeed waxa uu siiri guriyahan طريقه kasi sii maarta asii maris guri kullee oo iska naso عادة ودنا waxa weeyaan wadada dadka degan dadku ay ku soo leexdaan way la cunaan way la cabaan marti geliyaan lacag yarbasiyaan saasi maarta subaxdan ku baxaan meeshana hotel ma jiro guriga ku soo leexday marka gurigii ayuu ku garaacay way ka fureen waxa uu ku yiri meesha de wadadii baraf badan baa ku daay habeenkuna waa madow yahay inaan ku nasto meesha lacag yar in siiyo ayaan rabaa waayahay leeyahay soo dhawow waa laba maqsin wuxuu ka kooban yahay gurigu maqsin iyaga gala odayga iyo haweenaydiisa maqsinka kalena wiilkooda ayaa gala way guriga isku yimaadeen martidii bay raashinkii u soo dhigeen waa la wala cunteeyay xaqi waa la wala cunteeyay wiilka la seexay yiraahdeen isaga dhinac baa loo seexiyay wiilkii ninkiina dhinac baa firash loo dhigay inankii baa habeenkii soo kacay